beesha isaaq hana nabadgeliso haddii kale hargeysaa laysugu imaanaya walaal gacantaana laysula tegayaa madbacmadbaciyana waxaas walaal nama celiyaan haddaadan ka tegin oo aadan gurigaaga aadin oo burca dhaafin xabad baa futada aad leedahay ku dhacaysa ogow waa ku dhimanaysaa wallaahi rag iyo dumar qori baanu qaadanaynaa xog iyo fursad baanu kaga saaraynaa isaaqow iidoorow musabiixiyow ka tag laasacaano war laasacaano ka tag war waa digniin war waa laguu digayaa warood ka tag war orodoo ka tag qofku inuu wax maqlaa fiican maahmaahna waa jidhaa ammaano raagtay xoolahaagaad mooddaa waa ku raagtay ammaanad ku ahayd waroodoo ka tag dhulbahante mataan ma ahan madi ma ahan dad buu la dhashay majeerteen buu la dhashay haddaadan ka tegin oo aadan gurigaaga aadin oo burca dhaafin xabad baa futada aad leedahay ku dhacaysa ogow waa ku dhimanaysaa warraqdaadaa taal adeerow iskaga tag majeerteen iyo harti dad baa laga laayaa laakiin dal lagama furto war ogsoonow war dal lagama furto dad waa naga dhintaa geerina loo dhalay adeerow iskaga bax baan ku leenahay annagu laascaana argagaxiso ma joogto meeshaan shacab baa degan laascaan ma ahan argagaxiso ma timaado sooma geli karaan buurahaasaa awal buntland ku leyn jidha argagaxiso haatana soo geli mayso argagaxiso ka guura meesha war gurigiinna aada war gurigaan ma lihidin war shaqo kuma lihidin war iskaga taga isaaqow war ha ku dhimannina meeshaas war waa idiin digaynaa war horta gurigiinna aada war waa idinka codsanaynaa war wax badan baan idin leenna war waxa idinkaga dhigtay maahan khasaare kale iyo idinka soo gaarin ka baxa waana idin salaamayaas magacaygu waa faadmo cabdikariin cabdilla cali waxaan ahay dadka reer gaalkacyood ah waxaan ka salaamayaa soomaali weyn iyo wixii islaamam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ka xumaay muuse biixi dadka uu gumaadayo oo masaakiinta oo xaaladaha la arka ku jira oo nolol maalmoodkeedisa oo biyihii u ka gooyey oo madaafiicda ku haraqaynayo oo leey argansalamaya oo dadka u tugsay ee ninka inuu cumar geelleeyo hubka ku soo daldalaya sida ugu dhaqsaha badan waa inay uga qaataan ciidamadooda haddii kale tii ka dhacda asagaa qaadaya mas-uuliyaddeeda sida ugu dhaqsaha badan ha uga joojiya madaafiicda ha ugana tago waddankooda oo biyola'aanta oo rafaadka oo kala googa oo baabiinta oo meesha goobihii caafimaadka goobihii dhakhtarka goobihii masaajidada la beegsanayo ha laga joojiyo waa dad Soomaaliyeed oo nimanka goonogoosadka wadanka ay degan yihiin Soomaaliya iskala Ingiriis ma leh kuwa aad joogtid baa walaal la isugu imaanaya Hargeysa iyo Burca iyo Gabiile iyo Togdheer baa la isugu imaanaya haddii aadan ka joogin si degdeg walaal saaro laba ka badan anagu dad la duciibsada ma nihin dadka waa dad wanaagsan waxa ergagixisadan adaa mas'uulka ah awalna soo biilayay buuraha keenayay waanu ku ogsoonnahay dadka aan ku ogsoon boorisiga isku qori war gabal dhacay baa nooga bax wadanka iyaga nimanka xunka soo qaldaysid walaal oo ku doonaysid wax walaal goboladaan helimaysid waligaan helimsid waaqa gumaysina nama gumaysan kadhid waa inaad sida ugu dhaqsaha badan uga joojiso saxabada ninka inuu Cumar Geele leeyahay baragelinta nagala baxo haddii xaquuq jiro oo caalam jiro oo beel caalam jiro oo islaam jiro hala ka bixin nimankaas waa laabiyay waa god islaam ma ahan waa soo duuleen waxa weeye beesha isaaq hana nabadgeliso haddii kale Hargeysa la isugu imaanaya walaal gacantaana laysula tegayaa madbaciyana waxaas walaal nama celiyaan haddaadan sida ugu dhaqsaha badan ka dhigin adaa ka shilaayi doona haddeer dandamaan inta ku hadhay ka kaxaysaan ku leenahay waad dhibaataysay waadna murgisay waa hurdo weynay dadkayga waad baabisay naga dhaqaaq nooga baxd xabad joojimaar horiya xabadda ilaad og tagtid ma joogsanayso xabadda ilaad og tagtid oo meeshii nii aad awal deganeen tagtid ma joogsanayso annaga manihin dad la ducibsada naga bax caalamku hadduu yahay hadduu soo baragelin waayo annaga xasan shiikhna waxba kama dhihin kara meesha jooga waan ognahay nimanka xunka xamar jooga calooshu shaqaysayaasha baarlamaankana hadday taa ka hadli waayaan baarlamaan ma jiro fadlan lacag ku subay noqdeen niman xun oo la iibsanayo oo waxaan awalba Soomaali god ku riday waa ka baxeen ninkaasna naga baxo
waa ka xunay dadka magaaladoodii iyo dalkoodii iyo deegaankoodiiba lagu haysto aad iyo aad baan uga xunnahay magaalana magaalo kuma duusho magaalana magaalo moogtay dhakada kaba qabsato aad iyo aad baan uga xunnahay dadka maalin walba madaafiicda korka lagaga ridayo oo ilmihii yararka ahaa umulihii maaragtay hoobiya qabsanayo oo ma taqaanaayey magaaladoodii xaasidnimo inta ka qabaan xitaa biyihii bay jarteen ma garatay macaal biyihii bay jarteen iyo korontoodii iyo waxa weeye waa dagaal aan caadi ahayn 15 naascaanood joogeenna waxa weeye waxay urursanayeen hub shilinkay lacagta naascaanood ka ururiyaan hub bay siisanayeen maaragtay dadka argagixisada ayaga argagixisada dad bay argagixisa ku ayaga argagixisada yaga waxa weeye meel ka socdaan iyo meel ka jeedaan ba aysan lahayn naagaha xunka ay dhulooyinka ay u soo dhaaranaya garoowe iyo ma taqaanaaye wadan aysan lahayna wadankiina ilaahay haynu ugu filnaysaan leeyahay waa ka xunay magaalada iyada cunaqabataynta lagu hayso cadawgu saa noo boobay nimadii lagu laayay ragii lagu laayay oo dadkii oo dhan naga qaxeen dadkii oo dhan waa ka qaxeen maatadayda meel banaan waligoodna may qaxin hadda wixii ka qaxiya dadkayga iyo dalkoodii iyo aarladoodii iyo meeshoodii iyo wadankoodii wixii ka qaxiyana waa la garanaya cadawga Allah naga qabto nin walba wadankiisa iyo dalkiisa Allah tuso annagana wadankayaga dalkayaga ha nooga bixeen wadan ayna lahayn bay dhig ku daadinayaan oo maalin walba ku dagaalamayaan oo dhalinyarada ku dhameeyeen oo maatadayda banaanka ay yaacsan yihiin wixii saa noo baday iyagana Allah ugu xunbado magaaladeeda ha nooga bixeen ilaahay hadda yaqaaniyo rasuulkooda dhalinyarada iyo maatada ma yaqaaniin xagee lagu arkay nin dadkiisa iyo dalkiisa lagula dagaalamayo oo 24 saac xoog loogu haysto xagee lagu arkay magaalada la saacada nolosha maanta haysata magaala haysata ma jirto ana looga baxo wadanka ana looga bixin ana hadii kale wallahi rag iyo dumar qori baanu qaadanaynaa xog iyo fursad baanu kaga saaraynaa maxaa la saanood ka leedahay la saanood waxaan ka leeyahay nimankan waa la iska ogyahay oo nin dhulkiisii joogaba waxay leeyihiin aniga iskale taasina wax suuroobaysa maaha Soomaaliduna waxay tiraahdaa shimbir qorqabad biyo kuma cabto xasbi karta waxaan iyagu yeelin waxay ku cadaynaysaa iyaguna inaanay dan ka lahayn maanta markii ay ka hadlayeen golaha wasiiradu oo golahada guurtidu hadalkii uu lahaa ninka liyaado Saleeman Gaal oo ku lahaa mid kamid ah golaha guurtida inaan waxba la isla lahayn taas cadaynaysaa dhalinyarada iyo islaamay dadka baraha bulshada ka qaynayana waxaan leeyahay nimankani magaalada iyaga iskale say doonaan bayna ka yeelayaan ingiriis baa tirahdaan baa iskale oo dhulka xaruudka ingiriis hadal ingiriis aan joogin bay nimanku dhulka ku noolaayeen oo joogi jireen waligood kuwa ayaan dhawtay waligood ma aysan qaxin waa maqlayo iyadoo adeerinku aadan dawladda Soomaaliya ka hor bay nimankan ingiriis ka qaxin jireen oo ay qaxi jireen qax waxba u noqon maayaan waxaan leeyahay nimanka dalkooda uga tagay hadii kale ay wax kala doonaynaa wax kala doonaysaana waa dawka saasan leh Muuse Juudan wuxuu dhahay argagixiso way reela saanood maxaa ka leedahay taana argagixisada waxaan ka leeyahay qof meel iska taagan oo isaga ka xasaaniyad badan oo garaad reer iska leeyahay ah nin kale argagixiso weeye wax aqliga gali kara ma aha qof kastina waa u jeeda nimankuna sidoo dabana dadka ay la joogaan wax madayna ciyaal u sheekaynayaan oo ciyaal yararba waxay yiraahdaan waligood 30 sano waxay hayeen diyaaradu soo saarayeen meel lahaayeen diyaaradda ay saari jireen maanta kama duwana kaaraha ay soo jiidayeen keenayay meesha marka muuse waxaan leenahay aqligu ha shaqeeyo nimanka uga tag magaaladooda inta la sacaano waxa weeye dhibaatada halka ka taagan waxa xal loogu heli karaa inay ciidamada Soomaaliland baxaan si xal loogu helo mushkiladii dhibaatada halka ka taagan dadka maaragtay birmargeedada la leynayo aad baan uga xunahay in ciidamadu ay ka baxaan meesha lana wada hadlo sidaas xal loogu heli karaa assalaamu calaykum walaal calaykum assalaam raxmatullah soo dhow walaal waxa lagu weydiinayaa dagaal 6 maalmood socda oo maalinta dibad sii galiya oo shacabka reer Laascaanood u dhaxeeya ciidanka Soomaaliland maxaad ka leedahay walaal waxaan ka leeyahay shacabka reer Sool waa dad xaq u dirira oo dalkoodii iyo deegaankoodiiba lagu soo duulay waxaan ugu baaqaynaa nimankaas inay uga baxaan maanta ummadda Soomaaliyeed waxa weeye qabiil gumaysan kara ama jujuub ku haysan kara ma uu jiro inay goboladooda uga baxaan si nabadgelyo ah waxa weeye taas baan anagu soo jeedinaynaa anagoo dadweynaha reer Gaalkacyooda talabaadna wuxuu dhahay reer Laascaanood waa argagixiso taana maxaa ka leedahay maya taas waxa weeye nin weyn bal afka kala qaad lama yiraahdo reer Laascaanood waa dadka Soomaalida dadka ugu biritishsan oo ugu akhlaaq badan oo wax sideedaba xaq jira ama kooxa ama jamhada midna ayna ka dilaacin dadka weligood danahooda qaaska iyo dawladnimadooda ku mashquulo weey wax ka jira lama arkaa waa been
waana dad NGO ku raadinaya oo ku raadsanaya waxa weeye NGO-ya oo ummado kale ay kaga tuugsanayaan السلام عليكم ماما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماما maxaad ka leedahay ciidanka Soomaaliland in 6 bari dagaal la saacanood ka socoto xaq xumana ku haystaan? Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Horta waa dhawaan waan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed. Shacabka Rasuul ee Soomaaliland dhibaataynaysan aad iyo aad baan uga xunnahay. Waana wax laga naxo ay madaafiicda la dhacayaan aad baan uga xunnahay. Muuse wuxuu dhaarey la saacanood argagixiso way taana maxaa ka leedahay? Muuse waxa uu sheegayaa waxba kama jiraan weeye de wuxuu rabaa dadka shacabka oo masaakiinta inuu madaafiicda la dhaciyo masaajidadu rabaa dhibaatada uu geystayne waligood kama soo waaqsanaya marka waxaan leeyahay Muuse intay goor tahay dalkaas iyo dadka masaakiinta oo dalkooda aad ku soo duushay u nabadgeliyo uga baxbaan leeyahay gumaadkana ka daa